ninkii ku yidhaahda ciiduna waajib bay kugu tahay duhurna waajib buu kugu yahay wuxuu ku saaray 6 salaadood ninkii ciidda bas tukada ee jumca iska daaya 5 salaadood uu tukaday waxaad soo tukatay salaad maghrib waxaad soo tukatay salaad cishe maxaa ku xiga fajr maxaa ku xiga ciid عصر شنتي مرات نسمدن مغرب عشاء صلاة صبح عيد صلاة العصر شنتا صلاة ضوء نينك عيد كذا ظهر نقول كذا إني واجب تاي 6 صلاة كذا واجب دين تنصلكم الله وحاجئه بأه دين صوماليات معها دين نبي محمد معها تو صحابنا معها ما لها يستلم يقال هو شيء هذا فهمته مالك أيضا 5 صلوات بواجبها بوسك جمعة كفر دي يا أيمي عيد كحب بدن عيد بركة لا يكون ريح دي حيث الله مدي أنا سحن بارنه وأنا يفهم كلام اسكاكات الماشي أود أنا النبي محمد باسي عليه الصلاة والسلام nabigu markuu dadka u ruqseeyay ruuxii jumcadana la tukaday waa iska maqnaan karaa asagu wuxuu laakiin anagu waan jumcaysanaynaa sago dadkii jumcadii uu tujiyay jumcada iyo ciidu markay kulmaan inuu jumcadana tukan jiray ciidana tukan jiray sidoo kale xadiidkii sahih muslim baa ku sugan oo uu sheegay inuu qiraa'ada nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku akhrin jiray marka ciidana uu tukan jiray jumcadana uu tukan jiray maalinta jumcaha iyo ciidu hadday isku dhacaan dadku waa laba qof qofkii keligii ahaa ee ciidda tukada fasax waxa laga siiyey inuu maalinka jumcada iska dayn karo duhur tukan karo duhur buu tukanayaa duhurkiina ma daynayo laakiin imaamka iyo qofkii aan subaxii ciidda tukanin jumcadii way ogayaan way tukanayaan jumcadii dadka waa loo ogayaa imaamku ciidii isagoo tukaday jumcadiina dadka waa tukinaya qofkii ciidii aan tukanna jumcadii waajib bay ku tahay marka taana ayaan la iskaga tegine qofku labadaba kama wada tegi karo ee waa inuu ciidda tukada ama jumcada intaana waynu baraarujin lahayn haddii allaba qadaro ay iswaafaqaan labadaa ciidood waxaynu ku dadaalaynaa inaynu waa ayaamiin farxadee dadka ka farxino waxyaabaha ugu fiican in laga farxiyana waxa kamida in wax la siiyo loo deeqo jubilat al-anfus bihubbi man ahsana ilayha wa bi bughdi man asaa ilayha xigmad carbeed waxay leedahay bani aadamka waxa iskaga abuuran qofka wax siiya inuu jeclaado qofka xumeeyana uu naco xigtadiisaba ha ahaado marka hadday tahay xoolo la qalo dadka hilibkii baa ku adag iyo hadday tahay raashin la qaybiyo iyo hadday tahay lacag la qaybiyo intaba waxa fiican in dadka maalqabeenka ama xoolaha haysta bajad iyo qayb ay u baasgareeyaan siyaadaha ay kordhiyaan labada ciidood marka ay kulmaan raad nooceeya ay ku yeelanayaan salaadii jumcaha waxa imaam Ahmad iyo Abu Daawud iyo Nasaa'i iyo Ibn Maajah ay wariyeen can Muawiya radiyallahu anhu in waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidda iyo jumcuha ay kulmeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ciiddii tukaday kadibna dadkii u ruqseeyay inay iska daayaan tukashada salaada jumcaha axaadiid kaloo la macnayna waa jirta ka xadiidi abi hurayra iyo hadallo laga soo wariyay saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim marka waxaanu leenahay masalada axkaamteeda inagoo soo koobayna qofku haddaanu salaada ciidda tukan salaada jumcaha inuu tukadaa sidii bay faral ugu tahay waa masalada koobaad oo qofka waxaa u ruqsaynaya inuu salaadii jumcaha iska daayo markay ciid iyo jumcuhu kulmaan tukashada uu tukaday salaadii ciidda masalada labaad waxay tahay qofka salaada ciidda tukaday waxa u bannaan maalinka inuu jumcaha iska daayo laakiin bedelka jumcaha wuxuu tukanayaa salaadii duhur oo 4 ragcadooda salaadii duhur oo 4 ragcadooda ayuu tukanayaa
waayo axaadiida kuma cadda tukashada ciiddu faralkii maalinkaa inay meesha ka saarayso. waxaa axaadiida ku cadun inuu jumco iska dayn karo qofkii salaada ciidda waxa weeyaan tukaday. qowlka markaa odhanaya qofkii ciidda tukaday maalinkaa jumce iyo duhur midnaba tukan maayo, qowl aada iyo aada u daciifa weeyo taag daran. culimada islaamkuna aada iyo aad ay u dhaleeceeyeen. masalada afraad waxa ay tahay imaamka dadka salaada jumca tukiya salaadii jumca sidii buu u oogaya. dadkii ciidda tukaday iyagu ruksay u haystaan inay iska hadhaan oo duhur ay iska tukadaan, laakiin imaamku salaadii jumca wuu oogaya si dadkii aan ciidda tukani ay u tukadaan. salaada jumca ila jumciga ka dhici maaye. sidaasoo kale qofkii doonaya labadaba inuu isku darsado ila waa u bannaan tahay, waana siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam sameeyeyba si uu jumca uga soo qayb galo. marka masaladaasi iyadana sidaasi ha loogu baraarugsanaado. yaan la moodin in la iska daynayo salaadii duhur. haddaad maqashaan culimada qaarkood oo leh qofkii ciidda tukada jumcuhu ka dhacaya, yaan la moodin in la leeyahy duhurkiina uu ka dhacaya. cabdillaahi ibnu zubayr oo aharkiisu uu yahay ama waxaa laga soo wariyey waxa u badan ay cuskadaan qolooyinka yidhi duhurkii waa la iska dayn karaa kuma cadda, inaanu soo bixin unbaa la sheegay cabdullaahi ibnu zubayr. marka waxay u badan tahay inuu gurigiisa salaadii duhur uu iskaga tukaday. ila duhur masaajidka lagu oogayaa ma jiro, masaajidkii jumca lagu tukanayaaye. ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa maalmahan fadliga badan inuu khayr iyo wanaag iyo cibaado inoogu dhammaystiro.